فيلم كان واحد لغة ترجمة أستان فيلمس مقدشو. مروة مهربان فيلم كان واحد لغة ترجمة أستان فيلمس مقدشو. فيلشانا مهربان تقان جبادة هذا هو اللي بدقرت بدنيت برافو أو فيلشي إيشك قف إن لو شيء معهن إنه قف أقادنا معهن qofna uma sheegin aniga waxba ka cabsanin adiga xataa taxsiin kor u taag uma aana sheegin aniga iska jir haddii uu garto xataa jeesuur wuu dilayaa asaga sida uu aabihiis u dilay ayuu jesuurna u dilayaa mahadsanid adaa mudan marwo shahlin dhanaan ma iigu keeni kartaan adiga oo mahadsan waan kuu keenayaa maro fogaanay taxsiin muxuu u dilayaan asaga jeesuur ma hilmaamteen adiga ayuuba ma ilowday soo ma ogid sawirradii gacan ku samayska ahaa xasan wuxuu ka helay guriga taxsiin markii uu sawiradiisa helayna sidaas darteed ayuu kordaag gudaheeda ugu dilay xasan مروة هربان وان ku salaam maanta aniga waxaan soo salaam maro fogaan maanta waa maalin aad u fiican aad in wanaagsan tahay imaashadayda waan igu soo kadiyey astaghfirullah waxaan rabaa aniga macmacaan inaan ii keeno subaxdii hataa adiga waa ku quraacan lahayd jeesuur maanta isma arkin wax yar kahor inaan isdhaafteena u malaynaa Marwo fogaanay waxaan kuu soo gada maanta waxaad adiga aad jecleed oo macmacaan oo dhan waa kana si fiican u fiiri alla muxuu iga fakeraa asaga hada iga fakarta waan ogaa inaad adiga aad u jeceshahay ma jecelahay Marwo aad u mahadsantahay hadiidaha adiga aad keentay aad u qurux badan yihiin jikadan geena waa la soo diyaarinaa caafimaadka cuna okay waxaad ii wada sheekadii farshaxanka
ها وارون لكن صباح دي هل أيان عنا قلبتينا هل هذين إيد بتاشي كذاس farshaxankii hore oo la xaday ma arkayna asaga midaas qofkee maruu meherbaan hadiyadaha adiga aan siisay kaama mahad celinin aad baan nagu xashiisay adiga adiga mudan farxad ku wadaaga wiilkayga iga raali noqdo waxa la gaaray xilligii dawada aan siin lahaa kadibna waan u qubeynaa wayn seexanaysaa iga raali noqdo anigana waan sii baxayaa mar kale ayaan isku imaanaynaa anigana adiga ayaan ku sugayaa kulankaaga dambe maalintan ii wacnaato bye okay ayada uma eka qof xanuunsan sidaas soo ma ahana anaga xataa sheeka la yaabay noo sheekaysaa marmarna riyab iska gashaaf ayada waan sii baxay aniga subax wanaagsan iga raali noqo alarmiga waxaan sidaas uga dhigay si aad maanta dhan sariirta u saarnaanin waxaa laga yaabaa saake inuu madaxa aad ku xanuunayo waxaase kuu diyaariyay kaniiniga jaallaha iyo midka cadka intaad isku darsato cab kadibna anigaba markaan sidaan oo kale noqdo waxaan isticmaalaa khudaarta waxaana kuu rajeynaa caafimaad subax wanaagsan soohaan kan dharkaaga waaye dharkayga xalase kala ahayd hotelkeena ugu tagta dar waa ku keenay maalin wanaagsan kelida aka walwalan jaasuura bixi maalin wanaagsan dharkan waan iska siibtaa adiga maya adigana dharka waa inaad iska bixisaa maymay looma baahna aniga inaan iska bixiyo yaa qiwaad qoyda adiga looma baahna kuna inaan iska bixiyo bixi dharka iska daa dharka maya iska daa adiga le lagaa bixinaya okay maya
jeesuur miya waxa ilbaabka soo garaacayo aniga ma rabo inuu jeesuur noqdo waan ka xishoonayaa subax wanaagsan qofta xalayta soo dhaxday maxaa kugu dhacayna xalay adiga xagee aadan aniga walwal ayaa igu dishay adiga maxaa qof ankeed ma soo wargelinaysa miyaan ii sheeg iyo qishirin tartiib oo hadal adiga xabiibti soohaan wax walba wejigaada ayay ka muuqdaan yaa kuu soo dhiibana aniga ayaa kuu keenay fiiri kan waxaa kuu soo dhiibay jeesuur carandal oglo maantoo dhanna waa cabaysaa adiga hoo goormo guriga imaaday maxay ogeysi aniga adiga ma ogeyn miyaa goorta guriga ka baxay ma xasuusatid miyaa waan ogahay waxaan cabitaankaa cabti mahan ee way dabeecadaada xun adiga laakiin sohaan mid makuu sheega adiga aniga marka arrintaa maqlay run ahaantii aad ayaan u walwal dhulka ayaa ila wareegtay hoy cabitaankan shiriin iga daa waxaan ma cabi karaa aniga yaa khay cabitaankan waad cabaysaay hoo qabsa cabitaankan cab maanta dhan ayaad cabaysaa adiga dhaqso cabitaankan cab soohaan warkayga maqal cabitaankan cab dhaqso cabitaankan dhadhankiisa see waayna soohaan aniga haddeertaan cabitaan badanaan kuu keenaya baasto badanna adiga wada cunaysaa teeda kale caano oo dufinkuu ku yaryaana waa cabaysaa adiga guriga ma soo martana deg deg ayaan oga soo baxay guriga laakiin waxaan maxaa waayna ceeb ilaahay ha asturaan dhihi lahaa aniga waxaan ayaa kaa jecela abo yaa caadi ma ahanaan ku dhahay maxaa caadi ahayn yaqikeen oo xalay dhan ayaa isla joogteen miya waxaan jeclaa dhinacaaga anoo jiifa codkaaga inaan maqlo jeesuur ha iga tegin aniga ila joog ma dhici karto ma rabo inaad iga dheeraatid caawa iska seexo berito ayaan ku imaanaya baryaaya ha iga tegin berito ayaan ku imaanaya waa balan anaa beri ku imaanaya haddeerna ii seexo hurdo caafimaad leh okay soohaane maxaad doqontahay adiga maxaad midaas u samaysay adiga saasaa dhihi sharaf dhimataa kugu dhacday aniga soo fiir horta adiga ma waxaad tiri xalay ha iga tegin shiriin iga aamus adiga soohaan ilaahay ha kuu gargaar aniga waan kaa naxaya saaxiibadda ayaan ahay shiriin aniga ayaa madaxa i xanuunaya warka badan iga jooj haddii kale waan ku dilaya aniga doqontii aan jeclaaye kaalabla horta xabadka igeli adiga yaaqaay waxaan ha israareecinin jeesuur meesha ayuu kaga tegay adigana meesha kaga tag aniga waxaaba iraan inaan iska dhinto xishood dartiis ayaan u dhimanaya aniga marxaladan aa hadda ku jirto waxaa ka daran xaaska aabbaha adiga midaas ogow soohaan mahadsanid aadaad mahadsantaa kheyr ilaa ku siiyo adigana Sidoo kale. mahadsanid kheyr ilaa Sidoo ku siiyo kale. okay waad mahadsantihiin dhammaantiin jeesuur aad iyo aadaad mahadsan tahay ilaaha kaa raali noqdo dhammaantiin allah naga raali noqdo aad baad ugu mahadsan tahay maadaama si geesnimo leh aad ugu soo horjeysatay taxsiin kortaag aniga ma u malaynayn arrintan inay saan sahal u noqonayso lacagtan si sahal jeebkeena u galaysaa sidaasayna shaqadeena soo cunaysaa u kaadi howsha haddeer ayaa noo bilaabatay insha allah mahadsanid aniguna sii baxaa waaya jaysuur arrintan waa la xaliyey maasha allah wax walibelena sida la raba ayay ku socdaan baanu haddaysan ahaan lahayn arrintan nooma suurtoodayn ma wanaagsan arrintan inaan anaga maqalno aabba anaga midaan aan ku socono waa mid xun tacsiin kor ku taagna haddaan ka hor tagno anaga halis ayaan ku suganaa aabba u kaadi ma ninkaas qaabdariisaan fiirsan lahaa ii sheeg runtii waxaan nahay dad khayaanoolayaal ah balse annaga khayaanadeena daacadnimo ayaa la jirto astaafurlah walaalkayga rafcadow leebelkeen ka marayna khayaanada ii sheeg middaas adiga waa midda afaraad isdiyaarintu way dhammaatay wax walibana si la raba ayay u dhaceen hadda ammaanku waa okay haddana waa in aan bilownaa hoosheen aniga taxsiin hantida si tartiib tartiib ayaan la wareegi doonaa ma noqonayso midoo dareemaya xitaa taxsiin markuu aabbahaaga wax ka qaadanayay qarashka ma bixin marka adiga qarash oo keliyaad bixinaysaa kiis ayaa furaysaa marka adiga arrintaas ma ahan wax sidaas u sii weyn dhulka denver waan soo gadana halkaana dhul ayaan ka gadana aabba dhul ku bedelana wax dhibo ma lahan khasaarana ma qabna annaga maxaa dhici lahaa haddii middaas samayn lahayn natiijada inaan gaarno keliya muhiimaddeena
qofka wanaagsan waxa uu imaadaa marka sheekadiisa la hayo aniga waa idinka sii tagay ha isku dayin halkaa inaad ka dhaqaaqdo haddii kale waana laga shakinayaa aniga waxaan u maleynayaa adiga todobax in aad aaday aniga maalin walba ayay ii tahay todobabax maxaa waay waxa meesha ka dhacay waxaan arkaa kulligiin inaad isku timaadeen mise guddoomiyaha gobolkaad isku sharxaysaan aniga ilmaha midaas inay soconayso gaar ahaan markii uu qareenka aniga dhankayga taagan yahay mudane mid haddii aan ku weydiiyo berito haddii aad siyaasadda kusii jirto ma laga yaaba inaad i caawiso si wacan aan kuu caawina adiga aan ku baro ninkan aan ku baro waxaa la yidhahda taxsiin kordaag waa halboolaha magaalada kordaag muxuu iga kaa sheegan ninkan shirtiin fardaad ayaa lii dhahani waa aabbahe run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo adeerkayga ishtiin baarlamaankan waddo fara badan kasoo shaqeynaa laakiin hadda howlgab ayaan ahay sax soo maahane jaysuur miyaad soo booqatay booqasho filimkan waxaa lagu inaan shirkadiini maalgashi aan ku sameeyo muqdisho oo ganacsigeena miyaad kusoo biirtayna adiga adeer wuxuu gatay 2 dhul anaga aan lahayn jirnay waa arrin lagu farxo hadda waxaan noqonnay group ganacsiga aad ugu midoobay isla markaana oo ganacsigoodana xoogaystay way fiican tahay wax dhib ma jiro mar walba dad baa isku daya anaga inay noo hanjabaan isla markaana ganacsigeena hoos u dhigaan dacwad ka gudbi anaga agteena caaday ka noqotay mar walba noo hanjabo ma fahanti ninkan ani hore maana aqoon walaalkii rafcad maxaad gadaal iskugu dhigaysaa halkaa imaw walaal rafcad wuxuu ahaan jiray aabbeygii saaxiibkiisa qaaliga ah muddo dheer weliba haddana waa saaxiibadeeda qofka ugu sokeeyo qof igu cusub maba tihide meelahan miyaad degan tahayna maya waddada weyne istanbul ayaan garaash ku leeyahay aniga sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaan kadis ku kulanno ani adiga waa laga yaabaa midaas adarishtiin si fiican isku barta haye barasho wanaagsan kulan wanaagsan jaysuur waxay soo gaartay Sohan inaad Istanbul u wadi rabto adiga hoola shaqo ay ka leedahay waa arrin fiican haddii aad aragto ku dheh aabbaha ku madaxadkaan waxaa kalood u sheegtaa inay ka foojignaato dadka raba inay aniga nolosha ugu gubaan welina ayada aan lii soo adeegsan حبيبتي سوهان aniga howlahayga waan dhameystay marka adiga waa inaad sii diyaarisaa intuu jeesuurkaaga imaanayo okay shiriin jeesuur ma rabi halkaan inuu imaado soohaan aniga sidee u dhahayaa qof weyn waay ha imaanin teeda kale adiga mala socotaa inaad ninkaas u yeeratay macaaney maanta maxaa ku daaray macnee murugta ku hay shiriin haddaa warkayga jooji weys waa ku dilayaa murugta ku hay sameel aan waxba ha ii boteenya ani adiga hal meel ayaan wada degaynaa isku guri ma deganaya ogow midaas tanna maxay ii soo wacoosaana qoftaan mar un waad la hadli doontaa adiga la hadalaan ku dhahay yaqiho adiga la hadal waxaad tiraahdaa waa biisi halo maracaadle aniga waxaan ahay shiriin hallow shiriiney waxaan rabay Sohan inaan la hadlo maya ayada way mashquulsan tahay deertaan beerta jeesuur ma joogaana maya guriga dalxiiska ay joogtaa aniga waxaan rabay inaan la hadlo oo kaliya balse dhib ma lahan adiga ma waxaa rabta inaad Sohan la hadashana ii sheeg may dhibaato ma lahan waan kula hadashiinayaa ha ayada hadeertaan waxay ka soo baxday musqusha waan kugu dhiibaa taleefanka maalin wanaagsan okay bye هلو مروة عدلو Sohan waa ogahay aniga inaan noloshaada dhibaato ku furay inaan ku raalgeliyo ayaan rabaa ugu horeyntii waxaan rabaa buuqan tirada badan aan kugu furay inaan kaa raalgeliyo aniga sidoo aabbahay hore u sheegaba looma baahna adiga inaad i raaligelisid waa nagu waajib aabbahay qofka mar walba ka farxinaa inaan ku faraxno
waan ogaa aniga inaa u xanaaqsan tahay waalidkaaga balse haa waan ka xanaaqsanahay aabbahay balse arrintaas aniga aabbahay ayay noqosaysaa laakiin ha isku mashquulinin haddaad rabtidna waad ka xanaaqi kartaa waayo aabbahay kuuma soo guursan jaceyl adiga uu kuu qabo wuxuu kuu soo guursaday annaga inuu naga xanaajiyo muxuu wax badan u sugaayana markii codaynta shirkadda laga guulaystay ayuu wuxuu isku dayay aabbahay nafsadiisa inuu adiga kuugu sasabo adiga arrintan ma ku fakartana mise aabbahay sidaan wax kuuguma sheegin mideeda kale wax farqiya oo labadiina nii dhexeeya mala miya mise waxaad ka galaysaa taxsiin kordaag ayaa i guursaday taleefanka way demise maxay ii soo wacdana runta haddaysa dhegaysan karin inay isoo wacdo maba ahaynba soo sax maa shiriin waa sida ila tahay adiga wejigaaga maxaa la bedeshana soohaan adiga maxaad ku hadashana wax walbaad ku hadashina naagtaas waa xaaska aabbaha war waxaan u yaraysanaya male waxaan rabo ayaan dhahayaa iyaduba ma xishoonayso waa iska caddahay middaas anigu waan baxayaa magaalada ayaa aadayaa haddii wax kula soo gudboonaadaan isoo wac ila soo socodsiiye okay maxaa kugu dhacayn adiga aniga jaayadda ay igu soo qeylisay waxay dhahday waxaad tahay doqon sababtoo ah aniga shaqadii la ii diray ayaa turaan qabtay way ku saxan tahay midtaas qofaad aqoonsidee adiga alaabta ugu dhiibatayna oo ugu aaminta weliba aniga waxaan u malaynayaa qof daacada balse uma malaynayn jaahidda maclimadeeda inuu raadinayo baabuurkaygana aniga baabuurkiisa ayaa ka weynaa bes hadalka ay igu sii dheereen adiga haddii aad dhibaatada ka badbaadayba soomaali ka badbaadina adigana miigu darsantay haa waan ka badbaaday subaxnimadan intaan shaqadeena ka soo tagnay ayaan waxaan raadinaynaa caaisha ninkeedii hore ka waran bal hadda wax dhib ah ma jiraan arrintan way degan tahay kulley arrinta waxay u gudubtay saldhigga booliiska aniga sida ilata adiga waa degan tahay hadda ilaa hadda sheekada dhexda ayay uga jirtaa iyada taleefankeedana wuu xiran yahay adiga maxaad isku burjinaysaa naagtis awalba adiga ma dhalin saaxiibkeeda ayay raacday adiga lacagteedoo keliya haddii aad siisid waxay ahayd inaad dhahdid macsalaamo bas intaasoo keliya ayaa lagaa rabay filimkan waxaa lagu tarjumay astaan films muqdisho